عليه الصلاة والسلام عباداتك إلهي اللي قلنا وهذا وكمد لما مسلمون انت اسكو خلاف سنين ما جرتو ولما واحد هذا محل النزاع عين لا قرطابها بون هذا دركت مساله اسكو خلاف سن yahay waxa la isku khilaafsay exactly muxuu yahay in la gartaaba fiican nabigu salligiisu waa cibaada qofkii badsan kara kasta muslime ha badsado saxaabi baa uu yimo wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisa markaan ducaysanayo ducadayda gaarka ah rubuc wax ku dhadhoobaan adiga ka dhiga haddaad doonto ka badso buu yiri wuu soo waday nus baan ka dhiga haddaad doonto ka badso wuu soo waday markii dambe yiri haddaad ducada oo dhan ba adiga salligaagaan ka dhigi haddaad ka wada dhigta buu nabigu yiri hammigaaga ilaahay kaaga filaanaya idan salliga nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo badsiga la badsadaa waa min addiin hamiga alla kaaga warwar adduun oo dhan baa kaa ba'aya haddii problem kasta ku qabsado intaad halkaa fadhiisato nabiga salligiisa aad badsato uu kaa tegaya soo qolada psychology-gu ma yidhahdaan waxaan sameeya kan sameeya halkaa haddaad fadhiisato ama tasbiixsato ama salli nabi qaado waa kaa tegaya idan salliga nabigu calayhi salaatu wasalaam waa diintuu ka mid yahay kalgacalka nebi maxamed la jeclaadana waa min addiin bale wuxuu gaadhsiisan yahay in lagu amray aabbaha iyo hooyada iyo intaad dhashayba inaad isaga ka horumariso ka jeceshahay inaad nebiga jeclaato macnaheedu waxa weeyaan warkiisu inuu kaala weynaado cid kastoo kale marka alla laga yimaado warkii isaga inaad warkiisa ka horumariso كمال الإيمان أما إيمان كده مجترن كيسونه وحكو حدا ينسيدا إنه نبي قوي عليه عليه الصلاة والسلام جعل كيسنا وحيابات الماما وحكم ده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله إنه سجر راعنه ساش سويدين تلمركا ما أها النبي محمد وينين تيسه كما هذلين قفك مسلم كي كدو دانا وكو قالوا بيا واضح صوت اسمع مسلم كان النبي محمد وينيتيسا كضاد قليا وكو قالوا بيا وهم حي مركا علده حاجه كجرتا علده waxay ka jirtaa maalinta in la xusaamata hay qaab loo weyneynayo isku wada fursanayna in weyneyno laakiin qaababkii layna faray inaynu nabiga u weyneyno maalinta in la xusaamo ku jirtaa nabigu inoo ma sheegin isaguna ma xusin saxaabadii la joogtayna ma xusin تابعينتي كده بيسنا ما حسين مذاهب تأفرت علماء ذي نكون قانينا ما يحسين هذا حقيقة تمي وادم بين مسلمين تبرد أهلي ماد تاريخي أنا ضبط إمام المغريزي في كتابه سوق غيرونيو وحي سواب الأبان تبي كتل مامان الدولة الفاطمية مركي شوكتي مصر دولة دي كتلين سي عبديين تلورين شري قول الشيعة هاي أيا وحي كانت لح مولد لح بيرث داي مولد كوا بيرث داي لح بيرثداي in la xuso nabiga عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب فاطمة حسن يا حسين يا بقرك شنطها إنه نقضه وحلا حصية لحدا إنه نقضه وحلا حصية دولة دي شيعة هيد بالردي مركي الردي نمكي ما يشغب صدي واحد ورشنت الشيعة أنا نقطور النبي أنا أسكح حسن شنتينا وكتك كنا ويا حسين علماء وقت جاء وحكي كده بيسوي وحي سويديان والمسألة دني ما كم هي وحي دين توينو شيء يسمى كمان مدها علماء برضو حيدا دن ورني بكم تشرت دين نبي الله حصوا كاسي علماء بدرين وحيلين وروحني مسؤول لكن أنا هل كلام كل شيء يا وحاصر دنك بحسن هذا ما قشوا مسألة ده النبي قوم الصماينين أما صحابة دي ما الصماينين كم الصماينين سؤال بنكوي دينية نبي محمد sidoo alle u caabuday si ka badan miyaad u caabudi karaysaa maalintaad intii nabi maxamed uu sameeyay dhamayso aan sugu nimaadna bidca markaa saxiixa ma maalintaad intii nabi maxamed ka adkaato aan isweydiina waxa soo hadhay ma banaantay mise ma banaana laakiin intiiba haddaanad haynin waxba bidca ka warramay idan nabi maxamed maalin ha u yeelina maalin walba ku salli alayhi salaatu wassalaam inaad sanadkii maalin sugto oo tiraahdo maalintaas aan ku sallinaya maalinta tan dhan kale markaynu ka eegno ma la garanayaa maalintu exactly nabiga ku dhashay taariikhdii carbeed ee hore waxay u dhigantay sidii taariikhdii Soomaalida Soomaalidu baadiya ku dhalataa siday u calaamadsan jireen laba wax bay calaamadsan jireen toddobaadka maalintay ka dhashaan way calaamadsan jireen waxaad maqlaysaa hebel isniin buu dhashay khamiis buu dhashay jimco dhashay axad buu dhashay taa Soomaalidu ma laha
way calaamadsan jireen waxay kaloo calaamadsan jireen gugii ama dayrtii la dhashay wixii jiray gugii reer hebel lagu duulay gugii hebel dhintay gugii dayrta badnaa gugii cayn ayaa la calaamadsan jiray carabtii jaahiliyaduna saasay ahayd nebi maxamed markuu dhashay calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay maalintuu dhashay iyada wuu sheegay isniin baan dhashay buu yidhi isniintana wuu soomi jiray isniinta iyo khamiisahana wuu soomi jiray markaa wuu sheegay inuu isniin dhashay sanadkuu dhashiyo bishuu dhashay cidima garanaysaa sanadkii waxaa la yidhi sanadkii maroodigu maka ku soo duulay buu ku beegnaa marka waa sanadkii maroodiga markaa taariikhda la raadinaya war sanadkaasi halkuu kaga beegnaayo halkaasuu ku beegnaayo halkaasuu sanadkii maroodiga ugu dhashay ayay culimmadu yidhahdeen bisha ma la garanayaa waxay yidhahdaan waxaa loo filaya inay tahay bisha rabiicul awal ahay maalintana isniinta rabiicul awal qolo waxay yidhahdeen 12 ahayd taariikhyahanada hadda jooga waxay leeyihin markaa dib loo baadho 12 isniinba maaha nebiguna wuxuu yidhi isniin baa dhashay soo maaha haddaad dib u raacdo bay leeyihiin 12 isniin maahay see la yeelayaa axad alxufaad wuxuu leeyahy war 9 ahayd culamo kale waxaa qabtaa 8 marka maalintan 12 waa ashharu laqwaal waa warka ugu caansan ee taariikhyahanadu ay qoraan laakiin exactly inay ahayd maalintaasi xataa maalin laysku waafaqsanyay maaha soo duuduub hadday tay nebiga weynayntiisa maalin walba weyne 12 rabiicul awal ha sugine sanadkoo dhan weyne maalin kasta ku salli maalin kasta waxaad u samayn karta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u samee hadday tahay maalintaasi miyay diinta ku soo aroortay waxaa dilla ammaan arag anugu wallahu aclam